magaalada Oodweyne oo iyadoo ah xarunta gobolka Daadmareer oo hoos yimaadaan 4 degmooyin ka badan 58 tuulo isla markaana ka facweyn magaalooyin waaweyn oo Somaliland ah ay dhibaato weyn ka haysata dhanka soo saarka biyaha waxaana dadweynaha ku nool magaalada Oodweyne la cadiban yihiin sidii ay biyo ku filan ugu heli lahaayeen noloshooda iyadoo guud ahaanba magaalada Oodweyne oo ay ku nool yihiin dadweyne aad u tiro badan ay biyaha ka heshay ilo tiro yar oo ah kuwa gacanta lagaga dhaamiyo ku yaala doox weyn dhinaca galbeed ka mara magaalada Oodweyne waxaana meesha ka maqan xafiisyadii wasaaradda macdanta iyo biyaha Somaliland ama wakaaladda biyaha ee gobolka Daadmareer isla markaana ma jiraan riigag biyoodii ay bulshadu ka hesho biyo ku filan noloshooda iyadoo ay dadweynaha ku nool magaalada Oodweyne walaac xooggan ay ka muujiyeen shaqo la'aanta wasaaradda macdanta iyo biyaha Somaliland oo ah adeegga koowaad ee asaasiga nolosha bulsho kasta haysata gobolka Daadmareer oo ah gobol aad iyo aad u ballaaran baaxadiisuna ay weyn tahay waxa guud ahaan Oodweyne saameeya xilliyada magaranaysa jilaalka iyo xagaaga biyo la'aan aad u ballaaran ba soo fasaarta oo waxa Oodweyne ay biyuhu ka soo laga helaa inta badan dooxyada iyo baraagaha baraaguhu iyagu markiiba way guraan waxa la isugu yimaadaa isha ceelasha halkaas oo iyagana biyaheedu ay yihiin qaliil oo aanay ku filayn population-kan gobolka Daadmareer oo ah dad aad u farabadan toonbaan laga siiyaa marka guryaha la dhisanayna way ka badan tahay waxaan aad iyo aad ugu baahanahay in biyaha laga gacan qabto oo riigna loo sameeyo oo nu biyo helo meel aan biyo jirin baraka ma jirto waxa uu horeeyo horta wixii la helo biyo waxaan u sheegaynaa dawladda Soomaaliland sidii aan ugu dhignay looguma hambayn maalintii Silaayo waxa loo dhigay roog ayaa loo dhigay dibadda magaaladan wax uu qabtay ma jirto wax la yiraahdo iskuul wax la yiraahdo biyo la'aan wax sidoo roog uga kacay uu helay uu farunbu ka qaaday marka waxa uu leenahay hal eego magaaladan Oodweyne maadaama ay sidaa tahay waxa aan fariin u dirayaa anigu dawladda Somaliland waxa aan leeyahay sidan uu kuugu lismay noogumad hambayn waayo gobolka roog cas magaalada looga dhigay weeyaan sida fiican ee ololaha oo ugu soo saaray 23 riig baa la bixiyay 23 riig mid kaliya Oodweyne laguma soo dirin ceelashan ay biyaha uga yimaadaan magaalada Oodweyne oo tiro yar awgood ayaa inta badan la mashquula boqolaal ka mid ah dadweynaha magaalada Oodweyne oo safaf dhaadheer ugu jira sidii ay u heli lahaayeen biyo ku filan noloshooda waxaana u dheer mashquulkan dhibaatooyin kale oo ay ka mid yihiin dad xoog badan oo waqtiyada xilli roobaadka soo mara dooxa weyn ee Shimbireley ay ku yaalaan ceelasha ay biyaha ka hesho magaalada Oodweyne isla markaana baabiye ceelashan iyo khatarta ay ugu jiraan carruurta yar oo inta badan ku ciyaara dooxan ay ku yaalaan ceelashan oo ay ka muuqato daryeel la'aan dhibaatada maxay weeyaan ceelashu waa aasayaan way aasayaan ceelashana markii dadku soo maro way aasmayaan waagi bari waxaan dadkii wallahi foostay dhaami jiro ceel uma fagayna markii taas soo maraba aan goordhow raandis balahayn aan ku dul sugmeen ya haddii dawladdu dan naga rabtay deena danaynaysan ummadda Soomaaliyeed ka mid nahay وين فيك نروقضة يا شنتا بقول كيلومتر بان ميل عاد ورورت أنا جرو وحنا شرح اللي ما كسب حق قولك لا تحاول شرح اللي من قراه وكسره ما جرو من قراه وهذا لي ما جرو كي ولا هذا لي ما هو هذا لي حسبي وحنا أنا حسبي دير ما نادرنا وحنا دير لا وكيل كتي دقان كانوا على شيء مدحونه وكبر قاعدين عيال قراه كما هين ميل كسته ولا قصر بيه أو أنا ولي وحضر يا منار وسير كم عندي بيهنا بين ما كان شيء ما قيس معنا خانو أركتي داي هي شقة داي وما قيس أنا معاكم حسب كل مية سيدو قبل كل أودوينة مرهدان كجبيه قاعدين كقاطع محايا كديس يشوف مرهدو أودوينة كفوسي يوحنا ملان يدبين وصوت اللي عبا ملا وش كديد أودوينة ما يندب لوجو بعندوني عم بس ما أنت فود لقرب waxaana ceelashan si mutadawacnimaha ugu hirgeliyay magaalada Oodweyne injooyada wadaniga ee Laxmar iyo Candlelight oo kaashanaya hay'adaha Swiss Group iyo DRC si kastaba ahaatee biiraanta ka jirta deegaanka Oodweyne ayaa ka mid ah ballanqaadyadii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo waqtigii uu guda jiray doorashadii aqalka madaxtooyada Somaliland oo safar kala duwan ku yimid deegaankan Oodweyne Cabdikariin Maxamed Jaamac telefishinka caalamiga ee Universal Oodweyne